baro 7 tools oo ah kuwa ugu muhiimsan ee ku jira CapCut eena ah asaasiga muuqaal sameyneed. Haddaba waa kuwa toolskaas. Kuwa ugu dambeeya waa kuwa ay adeegsadaan dadka professionalka ah. Dhamaysa muuqaalkan ilaa dhamaadka. Waxaan ku sheegi doonaa mid walba magaciisa iyo shaqada uu qabto iyo sida uu isticmaali lahayd ama uu adeegsan lahayd. Split tool. Toolkan waxaa loo adeegsadaa in lagu kala jaro muuqaalada si aad muuqaalkaada ugu saarto khaladaadka ku jira, taasoo keenaysa inuu qurxanaado muuqaalkaaga. Haddaba toolkan waxaan dhihi karnaa waa laf-dhabarta muuqaal sameyneed. Si aad u fahanto waxaan sheegayno, soo gal application-kaaga CapCut-ka kadib new project ku soo dhufo oo soo qaado muuqaal tusaale ahaan aad ku sameyn rabtid. toolka koowaad aan kugu tusi doono oo la yiraahdo split tool. muuqaalkii ayaa lagu jarjarayaa, khaladaadka muuqaalka ku jira ayaa ku jarjaraysa. waxa ku dhufanaysaa marka koowaad muuqaalka, kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay split. sidaas waxaad ku jartay muuqaalkii. waxaad iska jarjaraysaa muuqaalkii adigoo ka haweynayo intii oo khaladaadka oo muuqaalkan waad iska deleedaysaa adigoo delete ku dhufanayo. Adjust tool. Toolkan wuxuu ku ogolaanayaa inaad hagaajiso midabka muuqaalkaaga. wuxuu ka dhigayaa muuqaalkaaga mid soo jiidasho leh adigoo habeynaya aragtida muuqaalkaaga. wuxuu awood kuu siinayaa inaad gacantaada ku abuurato color adiga ku gaara. si aad u fahanto sida loo isticmaalo toolkan, soo gal application-ka CapCut. kadib waxaad u socotaa halkan, waxaadna ku dhufataa halkay ku qoran tahay adjust. qaybtan koowaad oo adjusted ay ku soo baxday, waxa muuqaalka ku dari kartaa colorka ayaad xoogaa dheereyn kartaa iftiinka. sidoo kale waxaad u yeeli kartaa shadow hadaa rabtid. sidoo kale iftiinkiisa ayaad yaray kartaa hadaa rabtid. marka colorkaaga ayaa halkan ka saxanaysaa. halkan ay ku qoran tahay filterna waa filtero diyaarsan ama color diyaarsan oo muuqaalkaaga uu ku saaray. hadda matalan kan oo kale tan dooranayna waad u jeedaa oo muuqaalkii wuxuu isku bedelay sida tan. haddii aad ka qaadnana waxa waa sidaan sidii sore. haddii aan saarnana sidaan ay ku soo baxayaan. marka kuwan waa kuwa diyaarsan. haddii aad rabtid inaad colorka iska qaadid waxaa ku dhufanaysaa halkan. haddii aad rabtid inaad mid cusub ama gacantaada ku abuurtid color adiga ku gaar ah, halkan ayaad micnaha ka wadwadaysaa oo shadow haddii aad u yeelaysid iyo haddii kaleba. okay, colorkii hadda aan soo saarnay waa kan oo muuqaalkaaga waad ku jiidi kartaa adigoo keli ku dhufanayo. kadib muuqaalka ayaa ku dhamaynaysaa. haddii aad rabtid inta ayaa ku keenaysaa, qaybtan ma saaraysid, qaybtan waa saaranaysaa. farqi weyn u dhaxeeyo muuqaalka. fiir, waad u jeedaa muuqaalkii markii hore sidaan mugdi u ahaa, haddii colorkii la saaran sidaan ayuu noqonayaa. marka colorka wuxuu ka caawinayaa inuu muuqaalkaaga noqdo mid aad u qurux badan. Text tool. toolkan wuxuu ka caawinayaa inaad muuqaalkaaga ku soo darto qoraal qurux badan oo muuqaalkaaga qurxinaya. waxaana dooran kartaa sida farta aad rabtid inaad ka dhigato qoraalkaaga, colorka fartaada, inaad animation raacisid iyo waxyaalo badan adigoo ka bedelaya fartaada. si aad u fahanto arrintaas, soo gal application-kii kadib waxaa ku dhufataa new project. soo qaado muuqaalka aad rabtid. toolkan waxaa lagu magacaabaa text oo waxa uu ku saabsan yahay qoraalka. waxaana ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay tida weyn ay ka muuqato, hoosna text ay kaga qoran tahay. kadib waxaad leedahay add to the text ayaad leedahay. kadib waxaad halkan ku qoranaysaa qoraalka aad rabtid ayaad halkan ku qoraysaa. tusaale ahaan Ebra edit. kadib halkan haddaan ku dhufano oo templates meesha koowaad hadda oo blog yar oo u soo saarayo, hadda calaamadan ku saaray haddaan ku dhufano wuxuu noo soo saarayaa templates diyaarsan oo qoraalkaaga haddii aad klik ku dhufatid qoraalkaaga wuxuu ku soo saarayaa isla sidaan. matalan oo kaleeto waxaan baraweynaynaa mid iska yar qurux badan ayaan raadinaynaa. hadda midkan oo kaleeto haddii aan saarno waxaad sugaysaa wax yar ayaad sugaysaa oo wuxuu ku sameynayaa qoraalkii aan halkan ku qornay. wuxuu noo saarayaa templates aad u qurux badan. waka waad u jeedaa wuxuu ku soo baxay sida tan oo quruxda badan. marka templateska wuxuu ka caawinayaa inuu qoraalkaaga ka dhigo mid qurux badan. sidoo kale halkan ay ku qoran tahay fonts. haddii aad ku dhufato waxaad arkaysaa farar kala duwan oo qurux badan. ayagana midda rabtid ayaa dooranaysaa. fartaadana sidaas ay isku bedelaysaa oo waad u jeedaa. sidoo kale halkan style ay ku qoran tahay. haddii aan ku dhufano waxaad ka bedeli kartaa. sidoo kale colorka fartaada ayaa ka bedeli kartaa adigoo rabtid midda rabtid ka dhiganayo. sidoo kale haddii aad effect ku dhufatid qoraalkaaga
qoraalo diyaarsan ama effectiyo qurux badan oo diyaarsan ayuu u sameynayaa qoraalkaaga oo waad u jeedaa effectiga aad rabtid ayaa ku dhufanaysaa adigoo halkaana waad ku wadi kartaa oo meesha rabtid ku dhufanaysaa ayagana waa kala qurux badan waad dooran kartaa sidoo kale haddii aan animation ku dhufano qoraalkaaga wuxuu yeelay dhaqdhaqaaq hada waad u jeedaa qoraalku waa iska taagnaa laakiin markii animation ka saarnay sidan yar oo qurux badan ayuu ku soo baxay waad u jeedaa animationada ayagana way fara badan yihiin marka midka aad rabtid ayaa isticmaalaysaa ayagana transition toolkan waxaa isticmaalaysaa markii aad laba muuqaal isku daraysid waxaa fiican inaad isticmaashid transition si muuqaalkaagu u noqdo mid soo jiidasho leh waxayna taasi ka dhigaysaa inuu muuqaalkaagu ku soo baxo mid aad u qurux badan waxaana gelinaysaa transitionka halka labada muuqaal ay dariska ka yihiin ama iska wadaagaan haddaba si aad u samayso soo gal applicationka CapCut waxaa soo qaadataa muuqaalka aad rabtid inaad ku samaysid then muuqaalka ku dhufo kadib waxaa leedahay muuqaalka ayaan kala jaraynaa oo isbalays ayaan ku dhufanaynaa halka yar oo labada muuqaal iskaga imaanayaan ayaa waxaan dhex gelinaynaa transition halkan ayaan ku dhufanaynaa hadda calaamadan ku saaray kadib waxaad dhex gelin kartaa transition ku habboon ama qurux badan muuqaalkaaga okay midkan oo kaleeto haddan maalan midkan oo kaleeto ayaan saaraynaa muuqaalkii wuxuu ku soo baxay sida tan waa labada muuqaal meesha iskaga imaanayaan marka ina muuqaal walba kala jartid ayaa waxa u dhaxaysin kartaa transition effect toolkan waa mid kamid ah kuwa ugu xiisaha badan wuxuuna muuqaalkaaga ku dari karaa saameyno kala duwan oo aad u qurux badan oo muuqaalkaaga ka dhigaya mid aad soo jiidasho u leh si aad u fahanto ayadana soo gal applicationka CapCut si aad u samayso effectiga xiga waxaad ku dhufanaysaa halkay ku qoran tahay effect kadib waxaad ku dhufanaysaa video effect halkan waxaa ku jiro effectiyo badan oo ayaga dhamaantooda wada qurux badan midkii aad ka heshid ayaad soo dooranaysaa adigoo kaliya clip ku dhufanayo muuqaalka adigoo kaliya effectiga ku dhufanayo marka sidaan ayuu ku soo baxay oo hadda u jeedid xogaa waan dheeraynaynaa sidaan ayuu ku soo baxay effectigi oo markuu muuqaalka soo galay waad u jeedaa oo si yaro qurux badan ayuu ku soo galayaa keyframe toolkan waa mid laga maarmaan ah haddii aad rabtid inuu muuqaalkaaga aad u samaysatid animation adiga ku gaar ah waxaadna u adeegsan kartaa qoraalka muuqaalkaaga ama sawirka ama fiidiyowga intaba waxaa u samaysan kartaa animation adiga ku gaar ah oo dhaqdhaqaaq cajiiba leh si aad u fahanto ayadana waxaad soo gelaysaa applicationka CapCut soo qaado muuqaalkaad rabtid inaad keyframeka ku samaysid then kadib waxaa ku samayn kartaa saa hore kugu sheegay ba keyframeka qoraal waa ku samayn kartaa sawir waa ku samayn kartaa muuqaal waa ku samayn kartaa si aan muuqaalka ugu bilowno muuqaalka koowaad aad rabtid inaad keyframeka ku samaysid ama dhaqdhaqaaqa u samaysid ku dhufo kadib waxaa ku dhufataa halkan kore hadda calaamadan ku saaray ku dhufo oo halkan ayaa keyframe kaga dhajinay kadib halkan imaaw waxaa soo weynaysaa muuqaalka kadib halkan imaaw haddana yaray kadib imaaw hadda halkan soo weynay kadib halkan imaaw waa yareyn kartaa ayadana kadib halkan imaaw sidaan aad dhihi kartaa oo sidaa rabtid aad dhihi kartaa muuqaalkaaga ma garad marka hadda muuqaalkii wuxuu ku soo baxay sida tan oo markii aan saarnay keyframeka aan u samaynay waa si yaro qurux badan hadda marka keyframeka aan samaynaynaa keyframekan ku dhajinaynaa haddana waan yaraynaynaa oo halkan ayaan dhigaynaa halkan markaan dhigno haddana waxaan samaynaynaa xoogaha waxyaraan dhaqaajinaynaa haddana markuu halkan joogo ayaan soo wadaynaa oo muuqaalka halkan aan dhigaynaa haddana markuu halkan joogo waxyaraan dhaqaajinaynaa halkan ayaan keenaynaa haddana hoos ayaan geynaynaa kadib waxaan samaynaynaa haddana keyframe ayaan ku dhajinaynaa maadaama muuqaalkii uu naga kala jarmay haddana halkan ayaan geynaynaa hadda muuqaalkii wuxuu ku soo baxay sida tan aan isla egno marka keyframe sidaas ayaa u isticmaalaysaa chroma key toolkan wuxuu ka caawinayaa inaad ku habaysato waxyaalaha la screen greenka oo aad ka saarto backgroundka uu wato wuxuu rabo ha ahaado qoraal ama video haddaba ayadana si aad u fahanto waxaad soo gelaysaa isla applicationka
soo qaado muuqaalkaad rabtid inaad ku samaysid then kadib waxaad ku dhufataa overlay add overlay ku dhufo waxaa soo qaadataa muuqaal yar oo screen green ah add ayaan soo leenahay kadib halkan ayuuna keenayaa waa calaamad yar oo markii uu qofku follow ku soo dhahay camal marka tana ku tijaabinayna markii uu muuqaalka sidan kugu soo galo halkan ay u soconaysaa waxaa ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay remove background kadib waxaa ka sii tagaysaa halkan hadda calaamadan ku saaray ay ku qoran tahay chroma key ayaan ku dhufanaynaa kadib waxaan dhaqaajinaynaa halkan oo waxaan ku aadinaysaa meesha aad rabtid in macnaha background-ka ka soo muuqdo hadda halkan oo kale haddaan ku aadino waxa waa cagaarkii dhana baxay sidoo kale geesaha waad u jeedaa cagaar yar ayaa ka muuqdo si aan iskaga baabi'ino waxaan wax yar wadaynaa meeshan oo waxaan geynaynaa 36 meelood waa iska yar macquul haddaad rabtid waa wadi kartaa ilaa halkan oo kale muuqaalkaaga wuxuu noqonayaa xogaa iska active ayuu noqonayaa sidoo kale waxaa ku aadinaysaa halkan oo kale waa ku aadin kartaa oo wuxuu macnaha eber ka dhigayaa ama buluugi ayuu meesha ka saarayaa marba meeshaad ku aadiso ay ku xiran tahay waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan waxun ka faa'iideen haddaba haddii aad xiisaynayso wax walba oo kor u qaadaya xirfadaada editingka halkan nagula saaxiib oo ka mid noqo bahda nagu xiran mahadsanidin